eedo ayaa lay jeediyay eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waayay waxay yiraahdeen cadeymaan ku haynaa cadeymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yiraahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo u taagan inay yihiin marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysan anigu ma garanayo qofku dhibano gartay laakiin marag baan kugu noqonaya dhibana kiisu ka yahay waa lay keenay dadkaas waxa kale oo lay keenay cadeyn waxa lagu yiri muuqaalkii aad yaani ka jawaabaysay ayaa cadeyn ku ah iyo baadhii waxay ka qorayba intaas cadeyn ku ah aniguna cadeynteeda baan keenay waaya waxaan anigu cadeyn aan u keenay aan cadeyn ka dhigtay aayadaha quraanka kariimka ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonin muslimiinta wax khayr oo wanaaga inaanay la doonin baan cadeyn u keenay sababtoo waxa la igu eedeynayaa waxaad gaaladii baad ku tiri muxuu ahaa wanaagina lama rabaan anna waxaan idhi aayadaha saa cadeynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay u jeed leeyihiin markay muxuu ahaa dugsiyo inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenna inagoo aan controlin aynu ku sii deynino aayadaha san keenay waxaan kaloo keenay aayado ka hadlaya inaanay gaaladu joojinayn la dagaalka inuu dugsiga soo booqday oo ardayda lagu sii dhexdaayay oo ardayda lagu soo dhaweeyay munaasabad inta loo qabtay ardaydii muxuu ahaa la dhex dhigay oo uu khudbadeeyay oo uu taariikhdooda uga sheekeeyay oo aan idhi tusaalaha saasi may wanaagsanayn muuqaaladii baanu ku soo bandhignay projector ayaanu ku soo bandhignay muuqaalo cadeynaya ninkaas inuu meesha galay oo ay ahayd inaanu gelin waxaanu soo bandhignay oo aanu cadeymaha maxkamadda keenay gabadh gudoomiye ka jaamacadda barwaaqo oo la yiraahdo Joy Ciisa gabadhaasi waxaanu keenay Twitter baanu keenay qoraal ay qortay kaniisadii soo dirtay ay qortay oo ay leedahay waxaanu u ducaynaynaa Joy Ciisa oo Soomaaliland u tagtay hawlo diimeed baanu keenay inkastoo kaniisadii markii dambe ka saarto ay tiri arrimo yaani nuguma shuqul laha gabadhani oo si khaldan buu qoraalku nooga baxay ayaanu keenay labada qoraal buu keenay waxaanu kaloo maxkamadda keenay gabadh la yiraahdo Christina Bowden oo ka dhigta jaamacadda barwaaqo oo macallimada oo u ololeysa yaani LGBT waliba qaybta tiida oo ah isxawilida in rag iska dhigaan dumar iska dhigaan dumarku rag iska dhigaan sawiradeedii iyadoo muxuu ahaa calankii muxuu ahaayay dadka LGBTQ+ iyadoo ku xardhan baanu soo bandhignay maadaama annagana leedaynayo annaguna waxaan idhi bartaan ayaga ayaanu nidhi maxkamadaanu arrimahan idin kala hadlaya wax weeye waa waxaanu maxkamadda muxuu ahaayay aanu geynay